السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا عشرادين امتحانها ee barashada luqadda Python ee aad kala socoteen channelka CR Warsame. Casharkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa hadduu alla ama ku arki doonaa wax la yiraahdo indexes ama list indexing. Listkan aan abuuray tusaale ahaan 4 number ayaan ku abuuray. Markaan sidaan oo kale u abuuro listka waxa la yiraahdo waxa halkan ku jira elements, elementiga koowaad, elementiga labaad, kii saddexaad and so on. Elementskan waxaa lagu calaameeyaa wax la yiraahdo index. Tusaale ahaan numberka ugu horeeyo 10 position ayuu ka dhacaa listka. Positionkee ayuu listka uga jiraa? Tusaale ahaan waxaan dhihi karnaa markaan aan tirada caadiga isticmaalayno positionka koowaad ayuu ku jiraa, positionka labaad ayuu ku jiraa, positionka saddexaad, afraad iyo wixii la midka ah. Indexku waa position isaguna, laakiin waxa indexku uu isticmaalaa positionka markuu tirinayo wuxuu ka bilaabaa tirada eber ayuu ka bilaabaa. Marka waxaan leeyahay indexka koobaad ama positionka koobaad eber waaye, positionka xiga waa 1, positionka xiga waa 2, 3. Listkan hadda aan ku sheegnay numbers wuxuu ka kooban yahay 4 elements. Elementiga koobaad position 0 dhaca ama index 0, elementiga xiga position 1 ama index 1, index 2, index 3. Waxa fahmaysaa marka indexku mar walba wuxuu ka bilowdaa eber waxa uuna ku dhamaan doonaa tirada ay listkaaga numberska ku jira ama qiimaha ku jira ay yihiin oo laga jaray 1. Tusaale listkayga hadda 4 elementiya ku jiraan, 4 laga jara 1 elementiga u dambeeya indexkiisa wuxuu noqonayaa 3. marka eber ayuu ka bilowdaa mar walba, indexka ugu horeeyo wuxuuna ku dhamaadaa n-1 ama waxa la yiraahdo length -1. waxa uu naga anfacayaa haddii aan rabo inaan isticmaalo tusaale ahaan haddii hadda aan dhaho print waxa soo daabacdaa numbers of 0 waxa uu soo daabacayaa elementiga dhaco position 0. waxaan kaloo sidoo kale dhigi karaa haddii aan rabo waxa soo daabacdaa elementiga dhaco position 2. position 0 elementiga dhaco soo daabacdaa nahno wuxuu soo daabacayaa 10. haddii aan dhaho elementiga position 2 dhaco soo daabacayaa 30. haddii aan dhaho execute ama run wuxuu ku tusayaa 10 oo ah position 0 elementiga dhaco iyo 30 oo ah position 2 ama index 2 elementiga dhaco. waxyaabaha uu isticmaali karno waxaa ka mid ah inaad isticmaasho loops oo aan dhahno anagoo isticmaalayna sidan ii soo daabac. tusaale haddii aan listkan oo dhan aan soo daabici lahaa statements caadi u soo daabici lahaa sidaan oo kale ayaan dhihi lahaa ii soo daabac ayaan dhihi lahaa afartoodii 4 mar. waxaan dhihi lahaa marka waxaa soo daabacdaa kii koobaad eber position 0, position 1, position 2 iyo position 3. afartii number sidaan oo kale ayaan ku heli lahaa aniga oo isticmaalaya loops dabcan ka faa'iideysanaya ayaan dhihi karaa maadaama wax lagu celcelinayo isku mid ay yihiin hal xaba intaan qoro ayaan waxaan dhihi karaa marna eber soo daabac, marna 1 soo daabac, marna 2 soo daabac, marna 3 soo daabac oo kale. loopiska waxyaabaha aad kale loo isticmaalo listiska ay kamid yihiin. tusaale waxaan hore soo aragnay for loop, haddana waxaan arkaynaa while loop anagoo index isticmaalayno. waxaan leeyahay halkan index is equal to 0. index waxaa marka hore igu shubtaa eber waxaan leeyahay while index ay ka yar tahay 4 because waxaan ogahay listkayga waa 0, 1, 2, 3. marka 4 intuu ka yar yahay listkayga waxa soo socdo samee. maxaan sameynaa marka? waxaan leeyahay waxa soo daabacdaa numbers of index. index marka muxuu ii hayaa wareeg koobaad. wareeg koobaad wuxuu ii hayaa eber. waxaan rabaa inaan dhaho hal ku dar index plus equals 1. indexkii wixii ku jiray hal iigu dar index equals index plus 1. haddaa fiirso marka muxuu sameynayaa index marka koobaad eber igu jiro eber ma ka yar yahay 4 haa waxaa soo daabacdaa numbers of index positionka 0 index 0 soo daabac 10 soo daabaci doonaa hal iigu dar dhahna index hal uu noqday hal ma ka yar yahay 4 haa waxaa soo daabacdaa position 1 elementiga dhaco wuxuu soo daabacayaa 20 hal ku dar 2 noqday 2 ma ka yarta 4 haa waxaa soo daabacdaa position 2 kan dhaco indexka labaad waxaa dhaco index 2 waxaa dhaco 30 hal iigu dar wuxuu noqonayaa 3 ma ka yarta 4 haa position index 3 ya dhaco 40 ugu dambeyn hal iigu dar uu leeyahay 4 markuu noqdo 4 ma ka yarta 4 maya loopkii sidaas oo kale ayuu ku joogsan karaa. marka waxyaabaha loo isticmaalo ayuu ka mid yahay loopska iyo indexeska marka sidaan oo kale aad rabto inaad ugu dul socoto. haddii aan ran dhahno sidii hadda kale waaye wuxuu ku tusayaa inuu listkii oo dhan uu soo daabacayo. haddii si qaldan meeshaan aan dhaho 4 meeshii aan dhihi lahaa haddii aan dhaho 5 indexku ma ka yar yahay 5 haddii aan dhaho oo aan ran dhahno waxa dhacayo markii uu soo daabaco
valueskii uu afar uu gaarsiiyo afar marka yar tahay ama la eg tahay afar marka yar tahay shan markaan ahaa waxaa soo daawacaa numbers of 4 markuu dhaho numbers of 4 ma jiro 0 1 2 3 waaye index afar lidaa marka ma jiro error ayaa imaanayo haddii aad fiiriso wuu kuu sheegayaa printing numbers of 4 numbers of index wuxuu ku leeyahay index error least index of out of range waxaa dhacay marka problem ama error la yidhaha index error exception waaye exceptionku waa errors imaanayo marka programkaaga uu ran yahay marka wuxuu ka dhalanayaa least index out of range index aanan jirin ayaa isku dayday inaad access garayso ayuu ku leeyahay indexka waxaa sidoo kale aan uga badbaadi karnaa sidii hadda dhacday oo kale inay dhacdo meesha aan dhahay 5 aan halkaan leeyahay afaray ahayd haddii aan hadda bedelo tusaale ahaan oon badiyo oon dhaho tusaale ahaan konton 60 ee aan daabaco liiskeenii intii uu soo daawacaya bis labada dambe soo diray sababtoo maxay because wuxuu iga rabaa kana inaan bedelo maadaama ay 6 noqdeen 6 inaan ka dhiga ayuu iga rabaa waxaan samayn karnaa inaan isticmaalo function lida length function lida length meesha aan halkaan mar walba anigu aan gacanta ka bedelay liisku markuu bato iyo markuu yaraado waxaan samayn karaa sidaan oo kale inaan dhaho size is equal to len of liiskaygii magaciisa len of numbers markaan dhaho len functionkan waa length yaa laga soo gaabiyo waxay ku sheegaysaa how many elements ayaa ku jiro halkan marka len of numbers markaan dhaho 6 elements ayaa ku jiro 6 ayaa halka imaanayo haddii aan dhaho marka while index uu ka yar yahay size while index uu ka yar yahay size ee aan ran dhahna markan wuxuu ku tusayaa markan inuu daabacayo 10 20 30 40 50 60 haddii aan ka tiro labadii ama aan ku daro kuwo kale cusub ma waxaa laga rabaa kan inaan bedelo maya waxa kale ma bedelayo because size wuxuu helayaa mar walba how many elements ayaa ku jiro liiskaygii 10 20 afar ayuu helayaa markan haddii aan ran dhahno si saxa ayuu u shaqayn doonaa marka automatic ka dhigi kartaa numberka meeshaan gacanta ka qoraynay len of numbers adoo isticmaalayo oo laga wado length of numberkaygii waxa uu ahaa waxaa sidoo kale indexku uu ii suurtagelinayaa in aan wax ka bedeli karo liiskaygii keliya maahan qasab maahan inaan wax soo geliyo keliya inaan soo bandhigo keliya maahan indexku wuxuu ii suurtagelinayaa in aan change ku samayn karo liiskaygii tusaale aan soo celiyo waxaan tirtiray haddii aan dhaho halkaan oo kale intaan leeyahay waxaan leeyahay numbers of 0 index 0 element ku jiro waxaa ka dhigtaa 70 tusaale ahaan waxaan sidoo kale leeyahay index 3 element ku jiro waxaa isagana ka dhigtaa 80 liiskayga marka hore wuxuu ahaa 10 20 30 40 laba position wax ka bedelay positionka ever indexkiisu yahay iyo position 3 indexka 3 ayaan laba value ku shubay haddii aan isoo bandhig dhaho dabcan wuxuu isoo bandhigi doonaa sidii aan rajaynayo 70 oo ah positionkii koobaad numberkii aan geliyey 20 iyo 30 oo ah numberadii ku jiray iyo sidoo kale ugu dambeyn 40 meeshii ku jirtay oo aan geliyey 80 oo ah halkaan ka arkaysid marka liisku waa mutable la mutable waxa laga wadaa waxba laga bedeli karaa waxa jiraan noo imaan doona hadduu alira sequenceska qaar aan waxba laga bedeli karin oo immutable dhaho sida tuple liisku marka waa mutable oo wixii aad geliso sideedii ahaanayaan qasab ma ahan waxba laga bedeli karaa oo waa ka daba tegi kartaa waxaan ka dhig ama waxaan ku bedel ama waxaan ku dar ayaa dhihi kartaa marka indexku waxyaaba ay ku suurtagelayaan waxaa ka mid ah kow inaad soo akhrin karto dabcan liiskaagii oo hal isu dul taagi karto labo inaad wax ka bedeli karto dabcan liiskaagii oo isu dul taagi karto dhigi karto element hebel wax ka bedel ama si gooniya keligiis igu soo bandhig iyo sidoo kale waxaa sidoo kale liiska indexku waxaa sidoo kale uu ku suurtagelinayaa meesha aan hadda index 0 index 1 2 3 aan dhahnay sidoo kale inaan gadaal ka soo akhrin karno haddii aan iska tiro middan oo aan dhaho sidaan oo kale waxaa soo bandhigtaa waxaan aragnay numbers of 0 numbers of 1 2 3 aan aragnay dhan kale waxaan samayn karnaa in aan negative index isticmaalo tusaale ahaan aan dhaho numbers of -1 isoo bandhig markaan minus isticmaalo gadaaluu ka soo bilaabayaa tirada wuxuu soo bandhigayaa -1 wuxuu u taagan yahay numberka ugu dambeeyo liiskaaga -2 wuxuu u taagan yahay kan ku xigo -3 -4 marka saas u soconaa isagana ilaa intii laga gaarayo numberka u dambeeyo marka negative index da isticmaasho gadaal ka soo akhri waayo marmarka qaar laga yaabaa inaa u baahato haddaan dhaho tusaale hadda isoo bandhig numbers of -1 waxaan rajaynaya inuu soo bandhigo sida kuu muuqanayso 40 oo ah elementiga ugu dambeeyo liiskaagii
haddii aan dhaho minus 2 isoo bandhig sidoo kale uu samaynaa 3 4 saasoo kale ayuu isagana uu sidoo kale usoo bandhigi lahaa. waxaan rabaa marka inaan qaybtan kusoo gabagabeeyo shaqo yar oo aan idin dirayo. waxaad samaysaa ama isku daydaa meesha hadda aan soo bandhigay hadaatii for loop while loop anoo isticmaalaya waxaan soo bandhigay liiskan anoo ka bilaabaya index 0 index 1 index 2 iyo index 3 adoo isticmaalayo negative indexes index minus adoo isticmaalayo oo dabcan gadaal kasoo bilaabayo soo bandhig liiskaagii while loop adoo isticmaalayo waxaa dhahdaa waxaa soo bandhigtaa -1 -2 -3 -4 marka conditionka lagu xirayay sida wax noqonayaan iyo waxaas oo dhan adaan ku daynayaa. intaas ayaan qaybtan kusoo gabagabaynaynaa. waa ku mahadsantihiin waqtigiina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.